gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa heshiis wax wada qabsi ah la saxiixday dhigiisa dalkaasi Suudaan sidoo warbixinta warkaan ku soo diray wariyaheena Suudaan inooga soo hadlay Yuusuf Macalin Maxamed wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka isla markaana ay ku wiileen gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saalax Sheekh Ibraahim Dhiblaawe iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Jubbaland Cabdishakuur Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee Puntland Nuur Saciid Maxamed ayaa heshiis wada gaaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Suudaan heshiiskaasi oo heshiis wada qabsi oo dhexmara labada garsoor ee Soomaaliya iyo Suudaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Ibraahim Iidlo Suleymaan ayaa warbaahinta qaranka u warbixiyay heshiiska ay wada gaareen gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Suudaan waxaan la soo gashay inaan la sameeyno dawladda martida loo hayo ee Suudaan garsoorkeeda heshiis wax wada qabsi iyo maartay kala faa'iideysi oo dhexmara labada hay'adood ee garsoorka Soomaaliya iyo garsoorka Suudaan waxa ugu muhiimsanaa waxyaabihii aan isla heshiiskaas aan ku gaarnay in la iswadarsado wixii khibrad iyo waayo aragnimo ah dhinac walba oo dhinac kale u gudbin karaya si ugu horumariyo dhinac walba garsoorka uu ka mas'uulka yahay isla markaana ay ugu fududaato xilka iyo waajibaadka uu hayo waxaan isla garanay in la isweedaarsado wixii tababar ah oo khibradda ay leeyihiin aynu ka faa'iideysano oo dabcan khibrad aad u ballaaran waayo waxba ugu filan ba tusaale ugu filan inagu intii Soomaaliya ay burburka iyo dagaalka ku jirtay iyagu inta way dhismayeen horey u sii socdeen haddana markii hore isku heer joognay haddana laakiin muddadaas inagu ay arrimaheenu ay kala daadsanaayeen iyagu way dhismayeen horey u socdeen sidaa darteed in la kala faa'iideysto oo wax la isweydaarsado ayaa la isla gartay arrintaasi loo fududeeyo la sameeyo gudiyo dhinacyada labada dhinac ka socda oo ay soo gudbin doonaan ama soo gudbin doonaan labada gudoomiyaha maxkamadda sare ee Suudaan isla markaana gudoomiyaha golaha sare garsoorka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya waxa rajaynayaa inay noqoto shay miradhal ah oo meel mar ah oo garsoorka Soomaaliyeed oo aad uga faa'iideysto sida ugu dhaqsaha badanna heshiiska ayaa waxa goobjoog ka ah madax ka socday safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan oo warkacay uu qaybsanaa waxbarashada tacliinta sare ee safaaradda Dr. Cabdiqaadir Guulana iyo qaybsanaa warfaafinta safaaradda Fido Maxamuud Fido wafdigan oo hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Ibraahim Iidlo Suleymaan oo maalmahan booqasho rasmi ah ku joogay dalka Suudaan ayaa dib ugu laabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Yuusuf Maxamed Macalin Kashmir warbaahinta qaranka عاصمة الدولة السودانية خرطوم